waxaa qaadanaynaa sheekadani kontonaad ee luqadda Talyaaniga. Sheekadan waxay ku saabsan tahay odaygan halkan idinkaga muuqdo. Waxaynu ku bilaabanaysaa sheekada sida tan. Ciao, waan idin salaamay. Il mio nome è Raul. Magacaygu waa Raul. Sono del Canada. Waxaa kasoo jeedaa dalka Canada. Ho 67 anni. Waxaan jiraa 67 sano. Sono un nonno. Waxaan ahay awoowe. Nel mio tempo libero. Waqtigayga firaaqada ahna studio lo spagnolo. Waxaan bartaa luqadda Isbaanishka. Mi piace guardare. Waxaan jeclahay daawashada programmada animati oo animationka ah in Isbagnolo oo ku baxaan luqadda Isbaanishka. Sono cose divertenti. Xoogaa waa isku midadaaliyaa. Aad iyo aad marka la ku celinaa. Ciao, waan idin salaamay. Il mio nome magacaygu waa Raul. Sono del Canada. Waxaana kasoo jeedaa dalka Canada. Waxaan jiraa 67 anni. 67 sano. Sono waxaan ahay un nonno awoowe. Nel mio tempo libero. Waqtigayga firaaqada ahna studio waxaan bartaa lo spagnolo luqadda Isbaanishka. Mi piace. Waxaan jeclahay guardare daawashada programmada animationka in Isbagnolo oo Isbaanishka ku baxo. Sono cose divertenti. Xoogaa waa isku midadaaliyaa. aad iyo aad asagoo telefoonka haysto isku midadaalinaya waa kaasa oona daawanaya programmada. Okay, saadi aqrinina. Ciao, waan idin salaamay. Il mio nome è Raul. Magacaygu waa Raul. No, waa fasirooya. Saadi anigu fasirayna aqrinaya. Ciao, il mio nome è Raul. Sono del Canada. Ho 67 anni. Sono un nonno. Nel mio tempo libero studio lo spagnolo. Mi piace guardare programmi animati in Isbagnolo. Sono cose divertenti. Okay, tookadana Soomaali bisa ku aqrinaya. Waan idin salaamay. Magacaygu waa Raul. Waxaa kasoo jeedaa dalka Canada. Waxaa jiraa 67 sano. Waxaan ahay awoowe. Waqtigayga firaaqada ah waxaa bartaa luqadda Isbaanishka. Waxaa jeclahay daawashada programmada animationka oo ku baxo luqadda Isbaanishka. Xoogaa waa isku midadaaliyaa. aad iyo aad waa saataas. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. haddii aad fahanteen commentiga kusoo qora waa fahanay. haddii aad fahminna soo qora still maynaan fahmin si aan idin fahansiiyo. Okay, ciao.